xalay xabaduhu markay dhaceen goobta waa nimid lafahaygaan u baqay oon kala cararay maanta dad dhaawici waa yaalaan dhimasho ma taal laakiin haddaan odayaasha ka tirsanahay waxaan idiin sheegayaa meeshaa saacadaha soo socda haddaan wax laga qaban oon sharciga la waafajin inuu dil yaalan bay saaka halkan fagaarahan la taagan yahay xalay labadii markay ahayd xaafadda aanu hortaaganahay anigoo ka tirsan odayaasha xaafadda ilaa 2005 odayaasha xaafadda oo ka ahaa guddoomiye wakhti dheer iminkana odayaasha ka xalay xabaduhu markay dhaceen goobta waa nimid lafahaygaan u baqay oon kala cararay kamay dhicin ilaa taariikhda ilaa maanta ilaa maalintii aanu soo galnay gobolka aynu joogna Hargeysa raggii halkaas soo galay baan ayaan ka mid ahay foolxumada halkaa ka dhacday Soomaaliland kamay dhicin waxaan u sheegaynaa xukuumadda ilaa heer madaxweyne arrimaha gudaha wasaaradda amniga wasaaradda dhulka waxaan u sheegaynaa sifo sharciga ku waafaqsan dhibta halkaa ka taagan in degdeg loo soo gaaro halkeeda la qabto intaan wax ka dhicin maanta dad dhaawici waa yaalaan dhimasho ma taal laakiin haddaan odayaasha ka tirsanahay waxaan idiin sheegayaa meeshaa saacadaha soo socda haddaan wax laga qaban oon sharciga la waafajin inuu dil yaalan bayna yaallo waxaan u arkaa ragga soo adeegsaday ciidanka ragga soo adeegsaday cagafta ragga soo adeegsaday qoriga war xagguu ka yimid manfaqastiiba war miyaan u sharci jirin war sharciga ha lagu tallaabsado degdeg hana loo soo gaaro haddaanu xafaddaan nahay iyo odayaasha salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu